kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka Samir Films waxaan halkaan idinkugu soo gudbin doonaa sheekada hadalhaynta badan dhalisay ee ah in la dilay aktarka Shushanti madaba in aktarku uu isdilay mise waa laga been sheegay xilli dad badan ayaa u sugayeen baaritaan ay gacanta ku hayaan booliska wadanka India ayaa boolisku waxay shaaciyeen in aktarku uu isagu isdilay booliska ayaana waxay shaaciyeen inay hubiyeen in aktarku uu isagu isdilay balse waxay sii raaciyeen inay wadi doonaan baaritaan weyn kaas oo ay ku ogaanayaan sababta ku kaliftay in Shushanti uu isdilo marka dadka qaar ayaa dambi baariyaasha iyo booliskaba ku tilmaamay inay yihiin kuwa laaluushqaatayaal ah oo lacaga la siiyay si ay kiiska isdil uga dhigaan meeshana ay kaga bixiyaan sheekadii ahayd Shushanti waa la dilay si kastaba ahaatee arrimo hor leh ayaa soo baxaya oo xaqiijinaya in Shushanti la dilay balse booliska ayaa arrimahan oo dhan ku tilmaamay kuwa waxba kama jiraan ah waxayna dhaheen sheekooyin dhowr ah oo hore u soo baxay waa kuwa been abuur ah balse dadka qaar ee taageerayaasha aktarka ayaa waxay sheegeen in arrimo badan ay meesha ku jiraan arrimahaas ayaana waxaa qayb ka ah oo dadka qaar ay sheegeen in 4 nin ay Shushanti guriga ugu dhuumatay ama qolkiisa waxayna sii galeen habeenkii xilli hore geeridiisana subaxii ayaa la ogaaday marka 4taas ayaa isticmaalay furo koobi ah waxayna galeen guriga qodobka kale oo ay soo bandhigeen taageerayaasha ayaa waxa uu yahay in qalabkooda sida xariga Shushanti lagu dilay iyo gacmo gashiga iyo waxyaabaha kaleba habeenkii kaamirooyinka ay damiyeen ay qolkiisa meel kaga qarsadeen habeenkii labaadna way la soo baxeen wayna ku dileen arrinkaas oo Shushanti uusan waxba ka ogeyn qodobka saddexaad si ay Shushanti u dilaan albaabka ay ugu dhuunteen markuu soo galay ugu horeynba afka ayay ka qabteen si uusan u qaylin kadibna xariga ayay ku ceejiyeen dhulka ayayna iskula rafteen Shushanti iyo 4 nin balse ugu dambeyn xoog ay u adeegsadeen ilaa nafta ay ka baxdo qodobka kaleysanaad Shushanti markay nafta ka baxday ayay xariga marwaxadiisa sariirta dusheeda ah sureen kadibna isagoo meyd ah ayay meesha ka soo raariciyeen intay xariga qoorta u galiyeen qodobka kaleysanaad oo ay soo bandhigeen taageerayaasha ayaa ah hal ka mid ay ilaaween dadkii dilay waxay tahay in gacmihiisa oo xariga aan taabanin sida gacanta bidix kaliya farta yar ay u galiyeen xariga kadibna ay halkaas ka soo raariciyeen balse laga waayay calaamad kale oo muujinaysa inuu isagu isdilay waxay kaloo taageerayaashu sheegeen in Shushanti iyo 4 nin intay ay dagaalamayeen in dhaawacyo yaryar ay wajiga ka soo gaareen balse booliska iyo dambi baariyaasha kiiska waxay dhaheen wax garaafa ah ma aysan soo gaarin mana la dilin Shushanti ee isaga ayaa isdilay dadka wadanka India iyo saxaafadda wadankaas iyo guud ahaanba taageerayaasha caalamka uu ku lahaa Shushanti ayaa waxay ku wareersan yihiin ma booliska ayaa runta sheegaya mise wararka kale oo taageerayaasha qaar ee wadanka India ku nool ayaa run ah inkastoo Shushanti dadka taageersan badankooda ay aaminsan yihiin in la dilay 4 ninna ay ka dambeysay dilkiisa balse booliska ay lacag qaateen kiiskana ay sidaas ku tirtir rabaan waad ku maasantahay daawade la socodka warbixintan iyo guud ahaanba janalkeena wax walba ka baxa hana ilaawin inaad subscribe tira janalkeena